السلام الله عليكم ملك استوديو كجوجتان ولكن يدرس حسن محمد بيج كايغا داونسا waa درس قصو بيج اوفيشال sida kale waxaad igala socon kartaa kanaalkayga YouTube-ka ee درس قصو channel official muuqaalka toddobaadka waxaan ku soo qaadan doonaa oday iyo islaan muddo aad u badan ku noolaa guri yar oo runtii ay iskaga qanacsanayeen odaygu maruu shaqo u baxay oo tuulo yar oo agtooda uu shaqo ugu baxay ayaa waxa ku timid islaantii xanuunkaas oo dhakhtar la gashay intii uu maqnaa kadibna ay geeriyootay isaga oo maqan si aan u soo badino qisooyinkan xaqiiqada ku salaysan fadlan ugu dhiirigeli oo page-kayga like saar sidoo kalena qaybta YouTube-ka subscribe saaro gambaleelkan furo waayo waxay kaa caawin kartaa si aad ula socotid muuqaaladan soo dhigo mahadsanid qisadani waxay ku bilaamaysaa sida tan runtii odaygan iyo islaantani waadla oo waxay ku nool yihiin gurigan iska yar hase ahaatee labadoodu ay ku qanacsiin kaasoo ay muddo aad u dheer ku wada noolaayeen gurigan hase ahaatee wax ciyaala iskumayna dhalin oo eebe ma siin wax ciyaala muddadii aadka u dheereed ay isqabeen hase ahaatee waxay yihiin labadoodu laba isku qanacsan ama midka kale garab siiya ayna dareemina inay waxbaba ka maqan yihiin waayo waxay istusaan markaste wanaag farxad iyo wadajir taasoo odayga iyo islaantani ay isku qanacsan muddada aadka u dheer maalin ayaa waxa u baxay shaqadii sidii caadada ahayd oo waxa uu tagay gobolkii uu shaqada u aadi jiray meesha waxay isku barteen inaan dhalinyara oo isaguna tareenka raaca gobolka oo odaygani shaqada ka soo raadsado odaygaas oo runtii inankan dhalinyarada aad ula yaabay hadallada uu weydiiyey kuuna jawaabay awowo waxaan u shaqo tagaa tuuladan yar oo muddo aad u dheer ayaan tuuladan ka shaqaynayay taasoo odaygu uu ku farxay maadaama dad badan ay tareenkan soo raaci jireen ayna wax salaana iyo wax wada sheekaysiya ayna ku darsan jirin muddadii uu tareenka raacayay muddo kadib islaantii isaga oo shaqo ku maqan dhakhtar ayaa la dhigay hase ahaatee xanuunka ku soo booday waxaa kaga darnaa nolosha uu ku noolaan doono hadday maanta teedeedii noqoto taasoo dhakhtarradu ay ku yidhaahdeen xanuunkaagu waa mid aad u daran oo xanuun la daweyn karayo maaha ee waa mid aad u daran muddo kadib islaantii iyadoo warwarsan odaygan meeshii uu ku noolaan lahaa maadaama ay u tahay ubad waalid iyo walaal iyo wax kastaba uuna cidna lahayn odaygan maanta hadday teedeedii noqoto xaguu ku dambayn doonaa iyadoo ku warwarsan mawdkii ayaa helay oo sidaa ayay ku geeriyootay kadib odaygii geeridii kadib inankii dhallinyarada ahaa ayaa waxay ku kulmeen tareenkii odaygii uu weydiiyey uu ku dhahay muddo badan kuma arag ee maxaa kugu dhacay oo tareenka kuguma arag taasoo uu odaygu uga sheekeeyey inay geeri ku timid xaaskiisii uu adduunka u jeclaanaa adduunka ay ku cidlaysay oo maalintii ay wada hadlayeen kadib ay xaaskiisu geeriyootay kaasoo in dhowraba ama in muddo ah aana u soo bixin bannaanka oo murugada iyo dhibaatadaas ku noolaa odaygan yari maadaama xaaskiisii ay dunida ugu jeclaa ay ka geeriyootay taasoo xataa aana wax ubada ayna isku dhalin inankii yaraa runtii ee dhallinyarada ahaa wuu la yaabay odaygan intaa badan murugada ku noolaa keligii ayna helin cid garab siisa ama murugadan la qaybsata maadaama uuna cid faamile lahayn uu keligii yahay oo inankan dhallinyarada ah uu hadda waraysanayo nolosha adag siduu ugu noolaa keligii guriga maadaama xaaskiisii ay dhimatay taasoo odaygu uu sheegay waayo ma haysto cid kale oo garab isiisa noloshaydana ila wadaagta ama garab igu siisa sidii aan nolosha uga soo kaban lahaa maadaama xaaskaygii ay geeriyootay runtii ninkan dhallinyaradii hadallada odayga ka soo baxay qayro aad u weyn ayay ku abuureen wiilka dhallinyarada ee meesha
la fadhiya. Odaygu uu leeyahay dhib ma laha wiilkaygii, tani waa adduunyo oo waa laga bixi doonaa oo wax dhibaatii ma jiraan, waxaana waa iska odaygu runtii hadallada uu dhahay inanka dhallinyarada waxay ku reebeen xasuus aad u mug weyn. markii dambe waxa uu go'aansaday bal inuu soo arko meesha uu ku nool yahay odaygu iyo hoyga ay isagii iyo xaaskiisii ka geeriyootay ay ku wada noolaayeen, taasoo odaygii hadda uu soo raacay una soo raacay gurigii odaygu uu ku noolaa, maadaama odaygani intii muddo ahayd uu guriga keligii iskaga dhex xidhnaa, uuna bannaanka u soo bixin ama uuna shaqo soo raadsan aan idhaahdo markii ay xaaskiisu geeriyootay. markay muddo soo socdeen waxa ay yimaadeen gurigii, taasoo inanku uu aad ugala yaabay noloshan ay ku noolaayeen isagiiyo xaaskiisa ama gurigan aadka u yar. runtii markuu xaaskiisa weydiiyey, runtii odaygii oohin ayaa ka timid oo waxa uu yidhi weligay ma arag qof dumara oo qaabkaasoo kale ah ama raaliyo sidaa u ah. muddo aad u badan ayaannu isqabnay wiilkaygiiyow, weligayna ma dareemin cidlo, laakiin maalintii ay iga tegtay waxaan dareemay cidlo aad u weyn, taasoo inanka dhallinyaradii uu leeyahay waad ka baxaysaa ee iska aamu, waayo noloshan adduunka ayaaba iska sidaasa. runtii odaygani muddada aadka u badan ee uu la noolaa xaaskiisa iyo isagu ma dareemin cidlo, oo waayo waxay u ahayd wehelka koowaad ee odayga daryeela, oo waayo way isku faraxsanaayeen labadoodu. nolosha laguu sheegayaana waa marka labada qofi ay isku faraxsan yihiin, ubad ha isku haystaan ama ubad iyo inay isku haysanin, taasi marnaba caqabad kuma noqoto noloshooda. runtii markay falaqayn badan galeen isaga iyo odaygu, inanka dhallinyaradii waxa uu go'aansaday inuu aabbahan ka kaxeeyo meesha oo uu geeyo guri ay ku wada nool yihiin isaga iyo xaaskiisa iyo ciyaalkiisa, taasuu dhahay guriga ayaad igula noolaanaysaa, waanan ku kaxaynayaa. kadibna gaadhigii ayuu saaray, waxauna geeyey gurigii ay ku noolaayeen isagiiyo xaaskiisa iyo ciyaalkiisa, taasoo inanka dhallinyaradii uu wacay xaaskiisa kuna dhahay gurigii aan ugu talagalnay aabbaha u sii diyaari, waan soo wadaa. runtii muuqaalkani wuxuu inoo tusaalaynayaa qofku marka uu waayeel yahay, hase ahaatee xaaskiisa iyo isagu ayna wax ubada isku dhelin, taasoo xaaskiisu marka dambe ay geeriyooto rafaadka iyo dhibaatada uu la kulmayo. muuqaalkan intaa ayaannu ku soo afmeeri doonaa. fadlan qisadani hadday tahay mid dareenkaaga taabatay, sheer dheh oo asxaabtaada la wadaag. mahadsanid.